السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبان حبيب وإذن الله سوري هذا حكن ما أنت أما عاو وحن كسر شيء سيد أوجدين بقى قصة شعيل أنا هراء وسوي شيء أما نسي إعلامي ونريد قصة شعيل وحنون بدن ومدين دور عشاء أنت حناك اللي قدونه يوتيوب كأبان حبيب هتذكر صوت يوتيوب كأبان حبيب بليز سبسكرايب and share haddii aad markii hore subscribe galeysana aad wad mahadsantihiin ila socda baan leeyahay waana qisadii aan idin balan qaaday waayahay youtube-kan abaan xabiib kulay waxaan u sameeyay waxa weeyaan waa in aan bulshada mar walba aan kula wadaago ama asxaabtayda aan aad ka isku jecelnahay inaan kula wadaago wixii farxadooda ama wixii caajis ka saari kara horta waxa la yiri waxa alxamdulillah ya ama farxada inay dad jiraan adiga kugu xiran ama aad asxaabtihiin ama adiga horumarkaaga jecel waxa la yiri kumaan ku nacab ama 200 oo qof oo ku nacab waxa inta doono aad uga fiican hal qof ama 2 qof oo aad ku jecel oo isdhex gasheen ku taageera horumarkaaga kula garab taagan saasoo tahay waxaan aad u xiiseynayaa aniguna ugu faraxsanahay 10 qof ama 20 qof ee horumarkayga jecel garab taagan mar walbana igu faraxsan ayaan aad ugu faraxsanahay walow aanay kumaan ba gaarin haddana 10 qof waa 10kii aan maanta oran lahaa horumarka iyaga ku gaaray horta inkastoo aanu oran karin maanta horumar baan gaaray laakiin haddana horumar badan waan higsanayaa laakiin walba horumar gaaraa wuxuu horta wanjaa qofkii soo gacan qabtay aad buu wanjaa wuxuu yiraahdaa ma jiro qof soo gacan qabtay ay koonay ninkastoo horumar gaaro fiirsan wuxuu koonay wax soo qalin soo gacan qabatay haba yaraatee ma jirto anuna kuwa kamid noqon maayo waxaan noqonayaa ninka ku faani doona insha Allah asxaabtiisa ku xiran dad talooyin badan ila garab taagan mar walba jecel inaan horumar gaaro ilaahda waxa samee si aad horumar gaadho ha ka niyad jabin dadkaasan aad ugu xiiseynaya oo waliba ku taami doona in badan aan xusi doona way dadka aad baan isku dhex galnay waxay yaamiseen in aad u fiican ama qof dabeecad wanaagsan ama qof wanaagsan aniguna sidoo kale waxaan ka aaminsanay dad aad u wanaagsan dabeecad qof lagu dhaqmi karo dad leh aan ka aaminsan aniguna waayahay intaas haddaan kaga imaado mahadnaqa asxaabtayda san sheegayba waxaan soo jeedinayay qiso jacayl oo xanuun kulul horta marka la yiraahdo jacayl marka laga hadlayo waa 2 nooc ama waa jacayl horumaray oo heer lagu gaaray oo maanta lagu taan karo ama waa jacayl khasaaray baan oran karaa ama guul daraystay oo oran karo waa qiso jacayl xanuun badan sida tan oo kale waayahay saasay tahay maanta xagan waxaan ka soo jeedinayaa qisadan waa qiso runa oo dhaba laga soo wadaagay waxaan ila soo wadaagtay walaasha aad u qaaliya oo iyaduna wadanka Muqdisho joogta qisadan waxa dhex martay 2 qof wiil iyo gabadh محمد iyo Nasrin